بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها كلمة وحان إن شاء الله أي tahay حفظ الأمانة أمانة ووقتigan dambe sida diinteenuba tilmaamaysay dhibaato badan lagala kulmo ayaan jeclaystay inaan kelimadeyda maanta ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayay ammaanada يقول المولى سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إلهي سبحانه وتعالى أمانة wuxuu u bandhigay samaawaadka iyo ardada iyo buuraha oo inay ammaanada qaadaan ammaanadii way diideen samaawaadka iyo ardadii iyo buuraha ilaahay u bandhigay subxaanahu wa tacaala ammaanadii inay qaadaan way ku dhiiran waayeen oo way diideen hase yeeshee bini aadan baa qaaday wayna ka cabsadeenoo inay xalkaa gudan waayaan ayay ka baqeen oy ka cabsadeen waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuulan baa ilaahay yidhi waxaa qaaday ammaanadii sidaa ahaa oo tunka u ritay insaan baa tunka u ritay marka inahu kaana daluuman jahuulan baa ilaahay ku tilmaamay qaadashadeeda laguma ammaanina waxaa la yidhi wuxuu ahaa jahli iyo dulmi ayuu insaanku ayaa sifadiisa ka mid ah sifooyinka uu leeyahay sifooyin yay ka mid tahay jahli iyo dulmi ciladu waxay tahay marka ay taasu dhacdo oo la gudan waayo liyucadib allahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walmushrikiina walmushrikaat in ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta oo kuwa daahirkooduna islaamka yahay baatinkooduna kufriga yahay ah inuu ilaahay ku cadaabo oo ku ciqaabo raggood iyo dumarkoodaba iyo kuwa ehlu shirkiga ehlu kufriga ah ee daahirkooda iyo baatinkooduba kufri yahay inuu labadaa qole ku cadaabo ayay ciladii noqotay waa labada qole ee gudan weyday markaa ammaanadii ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات مؤمنينتي iyo mu'minaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ayaga ka toobad qabo oo toobadooda aqbalo ayay ciladiina noqotay oo macnaha ay noqdeen inay guteen ammaanadii guteen jumle ahaan ha dhowto haba kala baxeen oo qaar fara badanu ha ku fashilmeenbe laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'minka dhabta ah iyo mu'minaadka dhabka ah inay ammaanadaas ilaahay inay guteen bay aayadda macnaheedu tilmaamaysaa mar haddii la yidhi wayatuuba allahu cala almu'miniina walmu'minaat wa kaana allahu gafuuran raxiiman laga dambaysay ammaanadaas sida laga soo raray culimada tafsiiru lmaraaqi ammaanadu saddex bay u qaybsantaa
أمانة العبد مع ربه أضونك أمانة إسقي عليه كذا حيسة إيوه أمانة العبد مع نفسه مع الناس أضونك iyo khalqiga kale ee bini aadamka ee dadka amaanada ka dhaxaysa iyo amaanatu al-insani ma'a nafsihi adoonka iyo naftiisa amaanada ka dhaxaysa saddexdaas ee amaanada ayay culimadu ay u qaybiyeen amaanada adoonka iyo rabbigii ka dhaxaysa waa mid ilaahay amrayo ma ahad Allahu alayhi hifdahu من الائتمار بما أمره ربه وهي إلهي أوامرتها أو أمري أضونك أمر حق ربي كي من أضونك لا أمري وأمانة الدين أي كشرت وكمتها وأمانة أضونك إيا ربي كده حيث وانشرح دونادو وحاسوق اللي دونا أمانة وحي دين كأهاي ليس أمري وأركان الإسلام كي إسلام كي إيو أي كمدهين أمانة العبد مع الناس ومد وذائع وهي ليس ديبتو أمانة يا سيدي لوجتو ليس عليو أو غشي خيانة ليس كسمينين وحفظ السر نبى سر كوديبتي سر وأمانة مع العبد أمانة العبد مع الناس بكمتها سرت كوديبتي إيه حوله كوديبتي إنا سيد أي أذو جدته أي إلا تمام يا مدرسة وايه أمانة كلا وصد هذا وحوي أمانة الإنسان مع نفسه نفتيسه laftigeeda ayaa amaano ku ah ya marka uu naftiisa midalan insaanku uu dilo de waa loo haysanaa waa loo cadaabaya marka adduunkana inuu sida fiican ku maamulo ilaaliyana ayaa laga rabaa iyadana oo waxay midaaladeeda kamida iyadana inuu amooladaas in sida ugu fiican inuu naftiisa u doorto سيدا أصلح بأن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح سيدا أقوى أكسن إنه نفتي سكما مره أو نفتي سميلح ونستاشنين أو صندروغة قلينين أو صنحمان قلينين أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح والأنفع له في الدنيا والآخرة الدنيا يا آخرة سيدا نفتي سوفي عن إنه كما ملوي انت أصور أنه وحي قليسا أن صوشقني أنواع ذات داخلة في أمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى هي بأدائها إلى أهلها أدامدي إلهي وأمري إن لو قلت أهل كيدي أما النفط هذا أقوده أما ضد كتير إذن كده حيث أقوده أما تي عدي الرب إذن كده حيث أقوده أمانة إلهي أمري ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي وحو إذن فريا وإذن أمريا إناد قدتان أمانة أهل كيدي إناد قدتان يا سيدا إنو صور شاقني نفط هذا كميدة أهل كاللو قدن هاي نفط هذا أيا كميدة سبحانك مركا واسدة وحا كميدة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصاري صحيحة رسولك عليه الصلاة والسلام حي 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة 5 روحي إسقو إيمان للي ماذا جنة قليا من حافظ على الصلوات ال5 5 صلوات روح حفظية على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن سيدا أي تاي أحفظية ويسيدا لغا بلاابو iyo rukuucdeeda iyo sujuudeeda iyo qiyaamkeeda iyo mawaaqiideeda iyo waqtiyadeeda ruuxa xifdiya salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo xaaladeeda ruuxa xifdiya oo xifdiya siyaami ramadaan bisha ramadaan soonkeedana xifdiya waa arkaanul islaamkii
وحج البيتنا حفظنا إن استطاع إليه سبيلا وهي وشرط قاس إليه إن حفظه وعد الزكاة طيبة بها نفسه زكادينا بحية إساقو نفتيسو أي كطيبتهاي أو أين كرهنين رالي كطاي وأدى الأمانة بالي ضمبئ أو ضمبئ سوى علي أمانة دينا قته كلك إنت الله صوى الشيء إنت أسو أمانة دي قيبي كطاي لكن أمانة هدق لليها أدى الأمانة مد خاصة ويانو ولا سؤالي أبي الدرداء قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة محيت هيبالي قال وحولي الغسل ويام ما يدوي من الجنابة اللي ما يدوه ما يدى جنابة اللي ما يدى أمانة دي كمتها انت كلا إنه صوشقنا أركان الإسلام كأنا دي حيث أمانة دي إني كمتها وأمانة دي كده حيثي أمانة العبد مع ربه هيدي وين هي مركا حديث كاسون هو حديث صحيح الباني وصحيح يا لي ترغيب يتريب وصحيح يا لي رحمة الله عليه sidoo kale waxa amaanadaas kamida rasuulka kaleey salaatu wasalaam khudbooyinkiisa inay kamid ahayd sida u badan in ruuxan amaano lahayn iimaan ma leh diinna ma leh ruuxan cahdi lahayn ilaa cahdigu waa ballantii lagu ballamay amaanade ruuxan cahdi lahayn diin ma leh ruuxan muxuu amaano lahaynna iimaan ma leh روى البغوي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا يريد من إن رسولكم ناخذ به خطبا نو أغري إلا قال وحون رنشري لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان بمل روحا أمانة لهين ولا دين لمن لا عهد له روحا عهدي يبلن لهين دين مله حديث كاسون هو حديث صحيحة إذا نسوري marka amaanadu waxa weeye waa xuquuq la iska gudi bini aadamkii intay dhaafto ayay waxay xuquuqda iska gudideedu gaadhaysaa xayawaanka xataa kale xuquuqdaasay soo gelaysaa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ولا حقوق ذوادو وجوديسان تتكي أهلك وأهائي أهل كذي حتى وحسوق ليالي حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء حتى أري نافكي سينيها إن جيسك لهين ينافكي جيسك لها هرديد اسكو دفتي أي لوك الجودي حقوق ذا marka tan waxay kamid tahay xuquuqda sida la isaga mar hadii la yiri la tu'aduna al-huquuqa ila ahliha xuquuqda sida la isaga gudo oo bini aadamka qura aan loogu koobaynin hatta ay soo galayaan xayawaankii kale xuquuqda la isaga gudahay marka amaanadan waa xuquuqda u weyn way sida way rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam adi al-amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka hadith sahih isaguna يا حديثك سمرة ورسولك كورين هايو عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أمانة جذبة ليروح يوم أمانة جذب قيمة هذه أولم بعنا مركز سوق لي أمريكا إن اللي جتوه تيضع عض إلهي وأدي إلهي إذن كده حيسي تي أدي خلقك إذن كده حيسي تي أدي النفط إذن كده حيسي إلى من يتأمنك روحي وأكوا أمان سدي أكوا أمني وجدوا أنا خيان بالي حتى كي كو خيانة أذيك خيان أمانة عليس كذا كي أذيك كو خيانة وحياة حقوق ذا وحكم ذا شرع إنه بنيي روحي وحكو جارسية إن هذا وحي وحلاق جارسيسو روحي وحي وحلاق فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
laakiin tan waxaa la yidhi xataa kii adiga ku dhibay ee ku khayaanay ha dhibin baa la yidhi isaga guda baa la yidhi marka inay culays iyo dareen cajiiba leedahay ayaa laga fahmaya xadiiska marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xadiidka cabdullaahi bin camar bin alcaas rasuulka ka warinayo radia allaahu canhu calayhi salaatu wasalaam rasuulka see buu noqon doonaa buu yihi xaalkiinu idinka iyo zamaan markay yimaadaan uu dhowaanayo zamaankaas in dadkii la qarbaleeyo oo la hufo dadkii qarbalayn iyo hufid oo marka ay soo baaqi noqdaan dadkii way xusaalada buunshaha ahaa oo ay isku darmato cuhuuddii ballamihii iyo ammaanaadkii yaa tabqa xusaalatun min annaasi qad marajat cuhuuduhum wa ammaanaatuhum markii ay isku darmadaan oo la kala garan waayo oo wakhtalafu ay iskhilaafaan markaasay xaalku noqon doonaa xadith walaa xaraj wey fakaanuu haakada hakadaa markay ahaadaan markuu hakadaa leeyahay rasuulku shabaka bayna asaabici farihiisu isdhex geliyey markuu wax oo dhan saa isugu darmo oo xuquuqdii oo dhan saa isugu dhex daadato wa shabaka bayna asaabici faqaaluu wakayfa sidee buu xaalku noqon doonaa bina yaa rasuul allahi xaalkanagu see noqon doonaa faqaala taakhuduuna maa tacrifuuna watadaruuna maa tunkiruuna wataqbaluuna calaa amri khaasatikum watadaruuna amra caamatikum ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas abu daauud wariye ee albaani uu saxiix yeelay waxaa dhici doonta buu yihi markay saan noqoto arrintu waxaad qaadan doontaa buu yihi waxaad garanaysaan oo si cad u garanaysaan waxaad ka tegi doontaan waxaad inkaartaan oo aydaan idin caddayn baad ka tegi doontaan waxaad aqbali doontaan amra khaasatikum amarkiina gaar ahaaneed yaad ku tuugsan doontaanoo amarkii caamka ahaa ee bulshada wax waa laga qaban kara oo faraha ka baxay buu noqonayaa markaas waa mar qiyaamadu soo dhowdahayo aan u malaynaya inayna inaga fogeynba haddaynaan jooginba taqbaluuna calaa amri khaasatikum watadaruuna amra caamatikum buuri amarkiina amarka caamka ahe na waad ka tegaysaan amarkiina khaaska ana waad qaabilaysaan sida aad wax uga qabataan xadiidkaa tilmaantaas ayuu ka bixiyado arrintu inay isku murgi doonto oo ay isdhex geli doonto oo maxaa xalaala iyo maxaa xaaraama iyo maxaa ballan ah iyo maxaa ballan la-aana iyo xaggee wax ku kala jiraan inay arrintu faraha saa ka bixi doonto tilmaan uu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay oo dhici doonta weeyaan baad odhanaysaa calaamooyinkeediina waxyaabo ka mido ay ka muuqdaan marka maxaa habboonaan lahayd markaasoo kale waxaa habboon dadka inaad si fiican ula dhaqanto xadiidkii ahaa man axaba an yuzaxzax can innaari wa an yudkhala aljanna ruuxii jecel in naarta laga dheereeyo jannadana la geliyo faltudriku maniyatuhu geeridiisu ha u timaado wahuwa yu'min billaahi walyowmi alaakhir isaga oo maalinta ilaahayna rumeeyey maalinta aakharana rumeeyey geeridiisu ha u timaado oo halkaas kow garannay maalintaas inuu isagoo ilaahay rumaysan maalinta qiyaamana rumaysan in geeridu u timid wuxuuna jeclaa in naarta ilaahay ka badbaadiya jannadana geliyo maxaa kale walyaati ila annaasi maa yuxibu an yutaa ilayhi dadka ha ula yimaado oo ha kula dhaqmo wixii uu jecel yahay isaga in lagula dhaqmo xadiidku waxaad moodaa qaacido caama inuu sheegado badbaado ahoo naartana lagaga badbaadayo jannadana la gelinayo miisaanna uu ku siiyey miisaankaasoo ah adugu khalqiga kula dhaqan ilaan ammaanadan inta badan ilaahay waa kafuuru raxiimo xaggiisa jirta haddaad iimaan leedahay oo qofku iimaan leeyahay rajuu leeyahay laakiin addoonkan bakhaylka ah xuquuqullaahi mabniyatun cala almusaamaxa wa xuquuqu laadamiyi mabniyatun cala almushaaxa bakhaylnimay ku salaysan tahay
addoonkan bakhaylka ah dee muxuu ahaye wixiisa inaad u ilaaliso oo saad naftaada u ilaalinayso u ilaaliso waliyaati ila annaasi maa yuxibu an yutaa ilayhi rawaahu muslim waxaa weeye inuu dadka kula dhaqmo oo ula yimaado wixii naftiisu jeceshahay in lagula dhaqmo adna kula dhaqmo dadka adigoo kale iska minfal wixii aad jeceshahay marka tilmaamahaas xadiidku ina siinaya waxaad moodaa badbaadada u weyn inay tahay markii saasoo noqoto xudayfe radia allaahu canhu saaxiibu siri rasuulilaahi oo sirta in badan hayey ayaa ammaanada marka hadlahayey marka xudayfe wuxuu le xadiidkiisa ku leeyahay xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xadiiثeyn buu yihi rasuulku laba xadiid buu noo sheegay buu yihi qad ra'aytu axadahumaa midkood baan arkay buu yihi waana antadiru alaakhar ka kalena waan sugayaa buu inaan arko ya mid waan arkayba mid baan sugayaa buu yihi inaan arko leh wuxuu rasuulku noo sheegay buu yihi ana alamaanata naزlat fii jadri quluubi الrijaali ammaanadu marka u horeysa inay ku soo degtay rag quluubteed gunteeda inay ku soo degtay dabeedna iyadoo halkaa degan oo fidra oo halkaa taalla in qur-aankii soo degay uma nazla اlqur'aanu qur'aankii inuu markaa ku soo degay dadkii oo facalimuu ay markaa ogaadeen oo min alqur'aani ay ammaanadu waxay tahay qur-aanku sidaan haddaba sheegayno addu lamaanaati ilaa ahliha qur-aankii baa ku soo degadoo tilmaamay qur-aankii inuu ku soo degay oo wacalimuu min asunati sunnadana ay ka ogaadeen sidaan hadda axaadiitan aynu aqrinaynay oo kale ilaan sunnadii baa laga ogaaday ammaanadu waxay tahay awalla asal ahaan bayba quluubta dadka ayay guntiisa ku deganayd marka xadiidka rasuulka uu noo sheegay waxaa ka mid ba ammaanadii sidaa ahayd ee qalbiga dadka degtay qur-aanka iyo sunnaduna caddeeyeen in la kor qaadi doono oo laga qaadi doono intii ay joogtayba laga qaadi doono camalkeedii baa la qaadi doonaa rafci alamaana ayuu noo sheegay oo see loo qaadi wuxuu yidhi yanaamu الrijaalu annawmata ama yanaamu الrajulu annawmata ninku wuu seexan ninkii ammaanadu qalbigiisa ku degtay qur-aanka iyo sunnadana ka ogaaday ayaa seexanaya fatuqbadu alamaanatu min qalbihi qalbigiisaa laga siibayaa oo laga qabqadanaya ammaanadii fayadalu aharuhaa midla ahari اlwaqti ayuu aanaya raadkeedii meeshii laga qaaday meel bar yar oo kale ah oo calaamad yar ah ayaa meeshii ka muuqanaysa laakiin ammaanadii nur xirkeedii maqan yahay fatuqbadu alamaanatu iyadii baa la qabanayaa fayadalu aharuhaa midla ahari اlmajri meel gacantaada markaad shaqo qabato ama muxuu ahayey dhimbil dab oo ay jidhkaaga taabato meeshii aad shaqada ka qabatay ama dhimbisha qabatay way fooracdaada kor bay u yar kacdaa hoosteedana inay wax ku jiraan baad moodaa waxba kuma jiraanoo waa maran tahay meeshaa fooracday oo kor u yara taagantay oo kale ayay ammaanadii noqonaysaa ka jamratin axrajtahu calaa rijlika waxay noqonaysaa dhuxul aad lugtaada korkeeda saa u saartay oo daba oo kale taraahu muntabiran walaysa fiihi shay-un kor bay usoo kacaysaa meeshii oo way soo foodhacaysaayo in wax ku jiraan oo hoosteeda wax ku jiraan baad u malaynaysa kolkaad saa u dakarto oo saa u dabaysana bush bay wax ku jiraaba ma jiro walaan dhiig baan ku jirin walaa malax baan ku jirin walaa dhacaan kalean ku jirin markaa ammaanadii saasoo kale noqdo wax muuqaal ahoon waxba aan muxuuha ka hooseynin ayay noqonaysaa sidaa darteed bay waxay noqon doonaan dadku in markuu halkaa marayey wuxuu qaaday akhada xasan quruurux yar buu qaaday oo markaasuu fadaxrajahu calaa rijli lugtiisu saa dulka u saaray markuu tilmaamahaya taa dhimisha dadkii waxay noqonaysaan marka yatabaayacuuna laa yakaadu axadu yuaddi alamaanata dheh dadkii inay wax kala gataan oo mucaamaloodaan ayaa dhici doonta markaasaa waxaa la dhici doonta in aan laba helin aan loona dhowaanin wax ammaano guta dheh ammaanadii wax gudanaya ma jiro miyayna hadda jirin nin baad waxoogaa loo dhiibanayaa odhanayaa aan kugu soo noqday iis yahay markiiba cagtuu ku dhufanaya hadduu ka gaadhsii laa yakaadu axadu yuaddi alamaanata
xataa yuqaala ilaa inta laga yidhaahdo ina banii fulaanin rajulan aamiinan wadankaa reer hebel nin aamina ayaa laga sheegay hadda aaminkaasu muxuu noqon doonaa la ammaanayo aamin la ammaanayo wuu noqon doonaa laakiin marka dambe waxaa loo tegi doonaa isagiioo faaruqa haddana halkaa nin aaminaa jooga xataa yuqaala lirajuli ma ajlada wa adrafa wa acqala warkaas xoog badanaayo dareen iyo caqli badanaayo dhug badanaayo waayo fahmi badanaayo raganimo badanaayo caqli badanaa baa la odhan doonaa kiyoo la ammaani ninkiisaa loo sheegahay kolka la ammaanaya muxuu yahay wamaa fii qalbihi xabatu khardal min iimaan khardal waxa weeyaan wax la arko oo ciiddaas xabaddaa ciid ee yarna ha ahaatee wix ugu yar midho soo baxa ka ugu yar ayay muxuua lagu tilmaamaa kaas wax la egoo iimaanu kuma jiro ruuxa sidaa loo ammaanayo xaaladdu halkaas inay gaadhi doonto ayaa la sheegay xadiidku waa xadiid muttafaqu caleyhi oo bukhaari iyo muslim isku waafaqeen marka ninkii saas ahaa ee la ammaanayay saasuu noqonaya marka wuxuu yidhi xudayfe radia allaahu canhu markuu tilmaamayo xadiidka aqriyayay walaqad ataa calaya zamaanun zaman baa dushayda yimid buu yihi wamaa ubaalii ayukum baayactu in kaana musliman layarudanahu calaya diinuhu wain kaana nasraaniya aw yahuudiya layarudanahu calaa saaciihi faama alyowma famaa kuntu ubaayicu minkum ila fulana wa fulana buu yihi wuxuu yidhi waxaa soo maray buu yidhi xudayfe radia allaahu canhu zaman baa isoo maray buu yihi aanan u aabayeeli jirin ruuxaan wax ka gadanhayan la mucaamaloonahayo aanan u aabayeeli jirin makanaa fiirinba aanan fiirinayninba dadkao dhan uba fiicnaa oo muxuu ku fiicnaa hadduu muslim dadku gaal iyo muslimba waa isdhex joogeen markaa hadduu muslim yahay layarudanahu calaya diinuhu diintiisaa ii socon diintaa lagu camalfali jiray oo ammaanadaa jirtayoo dhaqan diineed baa jiray oo diinta ayaa mucaamalada noo hagaajin jirtay oo ii soo celin jirtay inuu xumeeyo diintaa ka celin jirtay hadduu nasraani iyo yahuudi yahayna waxaa ii soo celin jiray ruuxa muxuu ahay waaligiisa ilan markaa muslimiintu saxaabada wakhtigay joogtay gaalka jooga meesha mid jizye laga qaado oo muxuu ahay la ammaan geliyo oo halkaa la joogo oo dad dusha ka muxuu ahay mas-uul ka yihiin buu ah saaciisigiyaa ii soo celinayeen faama alyowma buu yihi famaa kuntu ubaayicu minkum mid aan wax ka gadan oo la mucaamaloon ma jiro ilaa fulaan wa fulaan hebel iyo hebel farku tiris wey xadiidkaas oo muttafaqu caleyhi ah ayuu ku faahfaahiyey sidai asalkeedii ahaa iyo sida ay ku dambeysay saxaabadii oo joogta famaa baalunaa maanta aynu joogno qarni iyo qarni niskii muxuu aha kun iyo kun niskii taqriiban aynu joogno maxaa maanta xaal ku jiray marka ammaanadu halkaas ayay ka soo degatay halkaasayna martay saasuuna u tilmaamay saxaabigaas radia allaahu canhu marka xadiidka cabdulaahi binu camar bin alcaas radia allaahu canhuma rasuulku uu ku tilmaamayo xadiid saxiixa ah wuxuu sheegahayaa afar haddii lagaa helo wixii kaa tegay walbahaar ma leh oo adduunye ah arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya afar haddii lagaa helo afartaa bal iska raadi insaankiiow yaa xifdu ammaanatin ammaanada xifdinteeda haddii lagaa helo oo nin ammaanadii qaybaheedii aan sheegnay xifdiyey markaad noqoto wax kale oo adduunyo wixii kaa tegey oo kaa maqan walbahaar ma leh ta labaad sidqu xadiiin waxaad sheegaysa markuu run noqdo ilan ammaana darida waxaa keenaya been in lagu mucaamaloodo sidqu xadiiin war run ah ta saddexaad xusnu khaliiqatin dabeecad wanaagsan dabeecadda wanaagsan aad bay diinta ugu soo noqnoqotaayo waa mid aad muhiim u ah waana tii xadiidkii haddeer aynu soo sheegnay tilmaamahayado walyaati ila naasi maa yuxibu an yutaa ilayh ta afraad waxaa weeye cifatu tucmatin waxaad quudanayso wax dhowrsoon oo aad mar walba nin dhowrsoon oo noloshiisiiyo wuxuu cunahayiyo ku dhowrsoon inaad tahay afartaa haddii aada hesho yaa
falaa calayka maa faataka min addunya addunyada wixii kaa maqan wax ay kaala maqan tahay ma jiro xifdu amaanatin wasidqu xadiiثin waxusnu khaliiqatin wacifatu dacma afarta haddaad heshay waa xadiis albani uu saxiixiyey fi tarkiib watarhiib raxmat ullah calayh marka taas wey amaanadu waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaahay ummadda uu lagu kala hagayo oo ilaahay uu ku ammaaneeyey dhexdooda ayaa asaga iyo khalqiga u dhaxaysa ammaanadaas waa diintu meel weyn bay yay dhigtay dadkuna waa dareensan yihiinoo inay weyn tahay waa dareensan yihiin laakiin camalkeedii ayaa la soo jiri la'yahay sidaa darteed ayay dad ku dhaartaanba ammaanada meeshii ilaahay lagaga dhaaran lahaa man kaana xaalifan falyaxlif billaahi yay ku dhaartaan walidaa baa rasuulku wuxuu yihi man xalafa biاlamaanati falaysa mina xadiis isagana silsilada saxiixa ah ruuxii ammaano ku dhaarsan naga mid maaha ha ku dhaaran laakiin camalkeeda samee ilaahay ku dhaaro ammaanadu ha ku dhaaran marka ammaanadii sida ahayd ee samaawaadkii iyo ardadu iyo buuruhuba diideen waa takaaliif ay muxuu ahaayey ilaahay ina saaray oo haddii la gutana ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa lagu gaarhaya haddii la dayacana ilahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa lagu gaarhaya sidaa aan aayadda ku bilownina waa taasoo inamaa xamala bani aadam alamaanata ammaanadii ay intaasu diideen buu dhabarka u ritay wahiya takaaliif liyucadiba almunaafiqiina wاlmunaafiqaati munaafiqiinta ilaahay inuu ku cadaabo takaaliifta ay ku fashilmeen ee ay towxiidku u horeeyo munaafiqiinta calaamadoodu wahum aladiina yudhiruuna aliimaan khawfa min ahlihi iyaga oo ka baqanahaya ehelka islaamka ayay iimaandu ayay muujisteen ya si ay uga baqdaanba hataa ninka waxaa dhici karta gabadhaadii yaan lagu odhan ma meherin kartid iska islaamka isu ekeysiyo tutuko oo iska raac isagoo on aaminsanayn munaafiqu marka khawfan min ahlida waxyaabo badan baa soo galay in la dilo qura ma un maaha yubdiluuna alkufra kufriga ayay hoosta ku haystaan mutaabacatan liehlihi iyagoo kufriga ehelkiisa raacsano haddii xaalo islaamka iyo gaalada dhex dhacday oo ay timaado waxay la jiraan oo la saf yihiin mar walba xagga gaalada mutaabacatan liehlihi liahlikufaari bay raacsan yihiin daahirkiina muslim baanu ka nahay bay lahayen waa munaafiqiinta mushrikiinta iyo mushrikaadku iyagu waxa weeye way iska cadaysteen wahum aladiina daahiruhum wa baatinuhum calى shirki biاllaahi caza wajal daahirkooda iyo baatinkooduba shirki iyo gaalnimay ku sugan yihiin wa mukhaalafati rusulihi rusushiisa khilaafkeedii iyo alle khilaafkiisay ku sugan yihiin kuwa munaafiqiin sidaa darteed waa laba gaal gaalkaa horaana darane islaamka muujista ee khayaanada sameeyado ammaano la-aantiisa ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar taas wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay wayatuubu اllahu calى اlmu'miniina wاlmu'minaat liyarxama almu'miniina min alkhalq mu'miniintaas tilmaantoodu tahay kuwa iimaanka ali iyo rasuul iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo intaba rumeeyey bidaacatihi caamiliin bidaacatii ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kolkuu ammaanahayay dadka ammaanada guta muxuu yihi wاladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun waxaa ammaanan oo la soo ammaanay oo ay dhexda kaga jiraan ammaantaas wاladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun kuwa cahdigooda iyo ballamahooda iyo ammaanada ilaaliya kuwaas
ayaa ammaanan ilaa ay gebagabadu inay jannada firdowsaha dhexlayaan ay laga dhigo kuwaa wey waaya waa kuwa wixii lagu ammaanaystay ilaaliya wixii ballan ahaana ilaaliya aan khayaanin oon dhagrin oon gashiyin sifaadkaasuna waa sifaadka waaweyn ee muslimiinta iyo mu'miniintu leeyihiin lidkeeduna waa midda munaafiqiinta iyo gaaladu ay leedahay munaafiqiinta sida xadiidka saxiixa ku soo aroortay waa kuwa lidkoodo idaa xadatha kadaba waidaa wacada akhlafa waidaa tumina khaana kii ahaa wey haddii uu sheekaynaya been buu ku hadlaa haddii uu ballan qaadana wuu ballantiibuu ka baxaa haddii la aaminana wuu khayaana munaafiqu waa midka sidaasa muuminkuna waa ka guta ammaanadiisa iyo wixii lagu ammaanaystay ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaas kale in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin amrayaa inaad ammaanooyinka ammaanaad waa la jamciyey waxaad garanaysaa saddex baynu u qaybinadoo jamcii bay ishaaraysaa saddexdanu jamci qaybihii bay ishaaraysaa an tu'addu lamaanaat ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli baa laga dambaysa marka waa sidaasoo ilaahay subxaanahu watacaala ammaanooyinkaas kuwii ilaaliyey ee xifdiyey ilaahay hanaga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala bishaan ramadaan ee barakaysan ee raxmaddu furan tahay ee sharkii uu xidhan yahay in badan oo ka midu ilaahay kuwa uu cibaadadooda aqbalo ilahay naga dhigo ilaahay muslimiinta dhibaatada haysata oo nooc walba leh ilaahay ha ka qaado ilaahay ha ka qaado cudurrada allah ha ka qaado gaar ahaan dadkeennaas meesha aynu joogno hadda ee dhibaatooyinka aan dareemayno ee cudurkaas ka mid yahay cidhiidhiyada kale ka mid yihiin ee suuq xidhku ka mid yahay ilaahay naga qaado ilaahay barwaaqadeennii iyo nabadgelyadeennii iyo caafimaadkeenna ilaahay haynoo sugo haynoo soo celiyo kuwii ku shukriya oon ku kufriyna ilaahay haynaga dhigo ilaahay khaatimadeenna khayr ha ku khatimo ilaahay muslimiintu meel ay joogaanba ilaahay ha ka qaado muxuu aha dhibaatooyinka cadowgooda allah ka qabto weeyahay khaatimadooda allah ha suubiyo caafimaad allah ha siiyo dadka diinta inugu hogaaminayay diinta islaamka allah inoo muxuu ahaayey cimrigooda allah inoo barakeeyo cibaadada iyo diinta aynoo sheegayaanna allah inagu anfaco ilaahay jannat lfirdowsa ilahay hanagu manaysto kelimadeedii intaas ayaan kusoo hortay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu